Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa Konami ama eFootball meel walba adduunweynaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yakiboy Gamer qofka idinla hadlayana waa saaxiibkiin waa walaalkiin Yakiboy kusoo dhawaada muuqaal cusub subax kastoo khamiis ah waxaad igaga barateen inaan idin soo gudbiyo waxyaabaha sida rasmiga loo keeni doono iyo waqtiga saxda ah ee gameka la soo deyn doono intaan muuqaalkan gudaha u sii gelin waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkana aad subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si muuqaal aan soo dhigo uu ku soo gaaro aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay intaas haddii aad ii samaysay waxaan saaranahay waddadii aan ku tagi lahayn 6,000 oo subscribe ah haddii aadan weli noogu soo biirin oo mucaashaqiinta eFootballka xiiseysana aad ka mid tahay fadlan meesha waa meeshaada please noogu soo biir aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin muuqaalkeeni ayaa gudaha usii galaynaa waxyaabaha sida rasmiga ah loo keeni doono waxaa waaye European Club Championship iyo Players of the Week-yada labadan waa la hubaa Players of the Week-yo iyo European Championship-kan labadaas waa la hubaa shirkadda waxay shaacisay sawirkan oo hadda halka ugu jeedaan European Club Championship-kana labadaas ciyaaryahan ayay shaacisay Worldwide-ka ama Botowgana labadan ciyaaryahan ayay shaacisay ciyaaryahanada ay shaacisay shirkadda haddii aan kula wadaago kuwa European Championship-ka waxaa waaye Vinicius Junior Elliot labadaas ciyaaryahan Vinicius Junior oo ku imaanayo 99 ninkan oo Elliot la yiraahdo oo asigana markaasi uu ku imaanayo 94 labadaas ay shaacisay inaysan baaqan doonin oo ay keeni doonto maanta oo khamiis ah sidoo kale Worldwide-kan ama Botowgan Players of the Week-yadan waxaa u horeeya Ederson oo Manchester City oo ciyaara Porteria ama CB-gan ama goolhayahan ayay keeni doontaa sidoo kale Fermin Lopez maaldaha ninkan ayay keeni doontaa oo ciyaara Barcelona labadan ciyaaryahan oo Players of the Week-yadana ma baaqan doonaan ayagana sidoo kale Worldwide-ka ama Botowga ama Players of the Week-yada shaashadooda saddexdaas ayaa la soo saari doonaa oo u horeeya Kylian Mbappe saddexdan ayaa la soo saari doonaa sidoo kale Ederson oo Porteria Manchester City asagana ma baaqan doono sidoo kale shaashada Worldwide-ka ama Players of the Week-yada sidan ay u muuqan doontaa saddexdaas ayaa la soo saari doonaa oo u horeeya Kylian Mbappe iyo raggan kaleeto halka ugu jeedo ayaa la soo saari doonaa sidan ayayna markaasi u muuqan doontaa sidoo kale waxaa kaloo gameka la keeni doonaa wax la yiraahdo European Clubs Attackers oo Showtime ah ayaa la keeni doonaa Showtime-kaas oo u horay John Beckham Mohamed Salah iyo Alvarez saddexdan ayaa la leeyahay waa la keeni doonaa maanta oo khamiis ah waa ku dhex arki doontaa eFootball 2025 maanta oo khamiis ah ayaa la filayaa in la keeno sidoo kale Neymar Jr ayaa markaasi asagana la keeni doonaa ayaa la leeyahay maadaama uu Al Hilal uu ka tagay oo kooxdiisa hore uu markaasi ugu laabanayo waa la keeni doonaa ayaa la leeyahay warbixintan oo Neymar 50% waaye in Neymar la keeno waa iska macquul in markaasi la keenin waa macquul waqtiga saxda ah ee gameka la soo deyn doono haddii aan kula wadaago gameka Soomaali waxaa loo soo deyn doonaa 5 saac oo subaxnimo oo maanta ah ayaa gameka la soo deyn doonaa wadamada kalena shaashada ayaan idin soo wada saari doonaa haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gaartay maxaa diidaa inaad muuqaalkan like saarto channelkana subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro